Qatar waa dal dhaca galbeedka Aasiya kana mid ah toddobada dal ee la isku yiraahdo Jasiiradda Carabta. Waa dal bed ahaan yar balse saameyn weyn ku leh gobolka, waana mid ka mid ah soo saarayaasha ugu weyn ee gaaska dabiiciga ah ee caalamka. Dalkan ayaa ku fadhiya bad dhan 11,571 kiiloomitir laba jibaaran, wuxuuna kaalinta 164aad uga jiraa dalalka ugu yar caalamka. Caasimadda iyo xarunta ugu weyn ee dalkan waa Doha, oo saameyn dhaqaale iyo mid taariikhba ku leh Bariga Dhexe. Qatar, wadamada dariska la ah lama laha xuduud dhul oo toos ah, marka laga reebo dalka Sacuudiga oo dhanka koonfureed ay xuduud wadaagaan. Dhaqaale ahaan dalkan waa mid hodan ah, wuxuuna dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay gaaska dabiiciga ah ee loo yaqaan marka magaciisa la soo gaabiyo LNG, wuxuuna hadda raadinayaa ilo dhaqaale oo kala duwan, waana mid maalgelinaya wax soo saarka, dalxiiska, adeegyada maaliyadeed iyo tiknoolajiyadda. Heerka nololeed ee dalkan waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay mid aad u sarreeya, waxaana dadka muwaadiniinta ah ay helaan nolol heer sare ah, adeegyo caafimaad iyo waxbarasho wanaagsan. Tirada guud ee dadka dalkan ku nool waxaa lagu qiyaasaa 3,119,589 qof. 350,000 oo qof ayaana ah muwaadiniin dalka u dhashay, halka inta soo hartay yihiin ajaanibta ku nool dalka Qatar. Taas micnaheedu waa in ajaanibtu ay ka badan yihiin muwaadiniinta in ka badan 8 jeer. Hogaamiyaha ugu sarreeya ee dalkan waa Amiir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, kaasoo xukunka dalkan la wareegay sanadkii 2013. Waxa uuna ka soo jeedaa qoyska boqortooyo ee Al Thani, kuwaas oo xukunka dalkan hayay tan iyo qarnigii 19aad. Waxaa saldhig u ah xukunka dalkan shareecada Islaamka iyo dastuurka dalkan, kaasoo la ansixiyay sanadkii 2003. Wasiirada dalkan waxaa magacaaba amiirka, waxa uuna leeyahay sidoo kale awood uu ku eryi karo. Waxaana jira golaha baarlamaanka oo leh xubno ay dadku soo doortaan iyo kuwa amiirku uu magacaabo, balse awoodiisu waa mid xadidan, inta ugu badan talada ugu dambeysana waxaa iska leh amiirka. Haddaba maxaynu ka naqaanaa qoyska dalkan soo xukumayay ee Al Thani tan iyo qarnigii 19aad, iyo asalka qoyskan halka ay ka yimaadeen? Waxaan idinkula wadaagi doonaa muuqaalkeennan, balse haddii ay tahay markii kuugu horeysay, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. Qoyska Al Thani ee maanta xukuma dalka Qatar waxay asal ahaan ka soo jeedaan qabiilka Tamim, oo ka mid ah qabaa'ilooyinka ugu waaweyn ee Carabta. Qarnigii 19aad ayay qoyskani ka soo hayaameen dhulka dhexe ee Carabta, una guureen gacanka Qatar, halkaas oo ay ku yeesheen awood siyaasadeed iyo mid bulsho. Ka hor qarnigii 19aad, Qatar kama jirin dowlad nidaamsan oo dalka gebi ahaanba maamusha. Qabaa'iladii degganaana waxay badankood hoos iman jireen xukunka boqortooyada Al Khalifa ee hadda maamusha dalka Bahrain. Isla qarnigan, boqortooyadii Ingiriiska ayaa gacanta ku haysay gacanka Carabta si ay halkaas saameyn ugu yeelato, waxaana xilligaas dhacay heshiis u dhexeeyay mid ka mid ah hogaamiyeyaashii qoyska Al Thani, Sheikh Mohammed bin Thani, iyo boqortooyadii Ingiriiska. Wuxuuna heshiisku ahaa in boqortooyada Ingiriisku aqoonsato xukunka qoyska Al Thani, lagana xoreeyo Qatar saameyntii tooska ahayd ee boqortooyadii reer Bahrain. Heshiiskani ayaa dhacay sanadkii 1868, wuxuuna dhidibada u taagay in qoyska Al Thani noqdaan hogaamiyeyaasha rasmiga ah ee dalka Qatar. Qatarta casriga ah waxaa loo tixgeliyaa inuu aasaasay Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani intii u dhaxaysay sanadihii 1878 ilaa 1913, isagoo mideeyay qabaa'ilada dalkan kana hortagay isku dayo badan oo shisheeye, kuwa oo doonaya inay maamulaan dalka Qatar, gaar ahaan boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Ingiriiska. Sheikh Jassim ayaana dejiyay saldhig siyaasadeed oo horseeday in Qatar noqoto dal leh hoggaan midaysan oo qoys keliya ka taliyo. Qarnigii 20aad, xilligii Sheikh Abdullahi bin Jassim Al Thani, gaar ahaan sanadihii 1913 ilaa 1949, ayaa la helay saliidda dabiiciga ah ee dalka Qatar, taasoo mustaqbalka ka dhigtay isha ugu weyn ee dhaqaalaha dalka. Sanadkii 1916, Al Thani waxay Ingiriiska la galeen heshiis ilaalin, taas oo keentay in Ingiriisku maamulo arrimaha dibadda iyo amniga badda, halka qoyska Al Thani ay gacanta ku hayeen maamulka gudaha. Inkastoo arrintani xadiday madax bannaanida Qatar, haddana waxay suurtagal ka dhigtay in qoyska Al Thani sii xajisto hogaaminta dalkan. Madax bannaanida rasmiga ah ee dalka Qatar ayaana timid sanadkii 1971, xilligii Sheikh Ahmed bin Ali Al Thani. Hase yeeshee, hoggaanka dalka ayaa si dhaqso ah looga wareejiyay, waxaana xilka qabtay Sheikh Khalif bin Hamad Al Thani sanadihii 1972 ilaa 1995.
Sheekh Khalifa wuxuu dhisay nidaam dowladeed oo casri ah isagoo xubnaha qoyska Al Thani siiyey xilalka ugu sarreeya. Sanadkii 1995 waxaa xukunka la wareegay wiilkiisa Sheekh Mohammed bin Khalifa Al Thani. Intii uu xilka hayayna wuxuu Qatar ka dhigay dal caan ku ah saxaafadda caalamiga ah, isagoo dhidibada u taagay idaacadda ugu afka dheer ee dalka ee Al Jazeera. Wuxuu si weyn u horumariyey warshadaha gaaska dabiiciga ah, taasoo Qatar ka dhigtay mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha xooggan dunida, wuxuuna abuuray siyaasad dibadeed oo madax bannaan. Sheekh Mohammed wuxuu xilka ku wareejiyey wiilkiisa Sheekh Tamim bin Hamad Al Thani sanadkii 2013. Sheekh Tamim ayaana maanta ah amiirka Qatar, wuxuuna wajahaa caqabado badan oo ay ka mid yihiin xiisado siyaasadeed oo kala dhexeeya dalalka Khaliijka, balse wuxuu sii wataa istiraatiijiyad madax bannaan oo ku dhisan maalgashi caalami ah, wuxuuna dalkan martigeliyey sanadkii 2022 ciyaaraha dunida. Qoyska Al Thani maanta waa qoys aad u ballaaran oo ka kooban 10,000 oo qof, waxaana la sheegaa inay yihiin qaybta ugu weyn ee muwaadiniinta dalka Qatar. Waxaan halkaas ku soo afmeeraynaa taariikhda guunka ah ee qoyska Al Thani, ahna boqortooyada aan dhicin ee ka talisa dalka Qatar.